safaarada Shiinaha ee magaalada Muqdisho ayaa markii ugu horeysay waxay sheegtay in iyadu ay bedeshay jadwalka socdaalka ee wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Shiinaha Wang Yi uu maalintii shalay ku imaanaya magaalada Muqdisho. Sayashee safaaradu ma aysan sheegin xilliga rasmiga oo wasiirka arrimaha dibadda imaanaya magaalada Muqdisho. waxay sidoo kale safaradu ay ku celisay taageerada ay u hayso midnimada madax banaanida iyo sidoo kale wadajirka dhuleed ee dawladda Soomaaliya. safarada Shiinaha ee ku leedahay magaalada Muqdisho ayaa sidoo kale waxa ay jawaab adag ka bixisay hadallo saacadii la soo dhaafay ay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Soomaaliland ay ku baahiyeen baraha bulshada gaar ahaan barta X kuwaas oo sheegaya in wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha safarku ku imaanaya magaalada Muqdisho uga baaqday xaalad amni darro. waxayna qoraalkoodu ku yiraahdeen wax kasto aad sameysaan xaqiiqda waxba kama bedeli kartiin. Soomaaliland waa qayb kamid ah Soomaaliya ayay yiraahdeen. tan ayaana imaanaysa iyadoo maalintii shalay la filayo in magaalada Muqdisho soo gaaro wasiirka arrimaha dibadda Shiinaha Wang Yi kaasoo imaashihiisa inta badan loo xiray wadooyinka magaalada Muqdisho iyadana saameyn togan ay ku yeelatay arrintaasi dadka shacabka socodka dadweynaha